runtii sharaf weyn bay ii tahay inaan maanta aan ka soo qayb galo kulankan loogu furayo tababarka saddexdii degmo ee u horeeyay ee nidaamka qof iyo cod ah ku soo baxa muddo 50 sano ka badan. waa marxalad taariikhi ah oo u baahan in la isdul istaago. runtii sharaf bay mudan yihiin dadkii kala duwanaa ee ka soo shaqeeyay inay hirgasho qodobka dastuuriga ah ee muddo badan dadka reer Puntland ay ku taameeyeen. waa tusaale cad oo maanta na hor yaalla oo hirgalay oo la arkay sida ay u suuroobi karto oo in badan dad badan oo xumo ka talisa oo horumarka Soomaaliyeed aan rabin ay mar walba baqdan gelin jireen in doorasho baahsan oo dadku u siman yahay la qabto iyagoo mar walba eegi karayay marxaladaas ay ku jireen inay iyagu dantooda ku jirto. waxyaabahaas waa waxyaabaha 50kii sano ee la soo dhaafay dalkeenu uu la degi laayahay. dhowr iyo 20 sano nidaam military ah oo aan ogolayn in la isdoorto iska daay in ra'yi la dhiibto ayaa soo marnay. Soomaaliya inteeda badnayd 30kii sano u dambeeyay ilaa hadda qaybtood deegaanada qaybtood waxay ku jiraan deganaansho la'aan iyo qalalaase. hadba qolo nooc cusub ah oo aan ogolayn inay dadku hadlaan ay hor joogtay. kuwii ugu darnaana hadda ay joogaan deegaanadaas meelo badan oo deegaanka Soomaaliya ka mid oo al-shabaab ah. waxaasoo dhan magacay rabaan iyo wajigay rabaan ha ku yimaadaan. ujeedada u weyn waxa weeye in talada dalkan ay baahdo. hadday taladu baahin waxaan mutaysan doonaa waxa hadda maanta aan haysanno oo ah burbur, fakhri, gaajo, cudurro iyo nolol la'aan. waxaan taagannahay inay quus naga qaadaan dadka Soomaaliya u soo gurman jiray oo beesha caalamka ah ilaa beesha caalamka baryadeedii habarta baadiyaha joogta xataa ay baratay markay maciin kale oo Soomaaliyeed ay bidda ay weysay. odaga iyo habarta maanta abaartu haysato markay af kala qaadaan cid ay u dhawaaqayaan waa beesha caalamka iyagoo ehelkoodii iyo walaalahood iyo kuwii waalidka u ahaayeen ay dhulka joogaan. runtii arrintaas waa arrin ceeb ku ah bulshada Soomaaliyeed oo u baahan marxalo in laga gudbo u baahan ah. qofka ku fakaraya inuu dan gaara helo oo ama uu xukun ku haysto ama uu xukun ku yimaado sidoo isaga iyo in ku xeeran kaliya u noolaato oo aan arkayn ummadda ballaaran ee badan. runtii waa ayaan darro u baahannahay inaan ka korno. waxaad arkaysaan doorashooyinkii ka dhacay saddexdaas degmo quruxda ay lahaayeen dadka waayeelka ah dadka tabarta yar inay danahoodii intay ugu yimaadeen 90 jiro habeen barkii markay salaada subax tukadeen inay faylkay galeen ay ka dhaqaaqeen qaybtood gabalka markuu dhacay. waxaad dareemaysaa humuumta ay u qabaan inay codkooda dhiibtaan. maxaa yeelay qofku marka uu talada wax ku leeyahay wuxuu helayaa kalsooni qofkaas uu talada u dhiibtay inuu dareemi karaayo inuu hawshaas uu ka soo baxay. filashadaas faraha badan waa dhici kartaa marka hore iyo marka labaadba sidii la rabay inaysan noqon. maxaa yeelay dabeecadii shaqo ee dhulka ooli jirta weli waa joogtaa. in laga gudbo iyada naftirkeeda waqti kale u baahan tahay oo ah in dadka ay soo doorteen inay la xisaabtamaan inay muhiim tahay. runtii arrimahaas waxaan u baahannahay golayaasha cusub ee deegaanka ee hadda soo baxay dabcan casharada
ay qaadan doonaan marka laga tago mas-uuliyadda saaran inay dareensan yihiin aad bay muhiim u tahay waxaan u rajaynayaa guul waxaan u rajaynayaa hadafkii laga lahaa doorasho dadku soo doortay oo hal nooc oo dad ah aysan soo doorin puntland golayaal bay lahaan jirtay marxalada deegaamada soomaaliya aysan lahayn ama hadda ay bilaabayaan oo hore uga soo gudubtaa jiray deegaanadaas qabaa'ilkaa soo dooran jiray hal nooc oo mujtamaca soomaaliyeed ayaa doorashadaa geli jiray oo odayaasha unbaa soo xuli jiray hadba qofka ay reerkaa u arkaan inuu munaasib yahay sababtay doonaan iyaga ha u xalliyaane maanta waxa aa ku timaadeen tartan dhex maray 9 urur 9 urur oo iyagu soo xushay iyagoo eegaya dhismaha bulshada qeybaheeda kala duwan iyo qofka ay u filayaan inuu hadafkooda siyaasadeed ay maanka ku hayaan inuu fulin karo deegaanka ugu yar saddexdan degmo midda ugu yar waxaa mathalaya ugu yaraan 4 urur dad ka soo baxay meelaha qaarkood 5 meelaha qaarkood 6 marka hal nooc oo dadka ah daday soo xuleen ma tihidiin dad aragti kala duwan ku yimid oo siyaasadeed fikirro kala duwan xambaarsan inkastoo fikirkeena siyaasiga oo weli kooban yahay oo bulshadeena iyo dhismaheeda iyo qabaa'ilka weli ay naga guuxayaan haddana in aad dareen u qaadid ururada ka mida inaad ka mid noqotid xubnihiisa iyada naftirkeeda waa horumar ka duwan horumaradii hore aan haysanay qodobka ugu muhiimsan oo aan kula dardaarmayo ururada halka jooga ee ka mid ah golayaasha deegaanka dardaarankay ugu horeeya waxa weeye ururadii aad ku soo baxdeen waa inaad ilaalisaan oodan eedin ama aydan dhaliilin madaxdii markaas inila shaqaynaysay hadday inaga gaabiyaan oo idinku hadda dadka ururka matalaya aad noqotaan oo dhismaha ururada ilaa laga gaarayo marxaladda xisbiyada aad waqti badan gelisaan ruuxaddii oo aydan noqonin dad uun ku raadsanaya inay golaha uga mid noqdaan taas inaysan noqon oo walaha ururka iyo ka shaqayntiisa iyo nidaamka aragti kala duwanaanta siyaasadeed inay noqoto wax hirgala oo bulshadeena laga dhehdo intaan u kala qaybsan lahayn qabaa'il aan dhammaad lahayn waad ogtihiin qabaa'ilku dhammaad ma leh waa uu farcamay ilaa aan hadda niraahno baheble iyo baheble waxa weeye hal oday iyo carruurtiisii kala qaybiyey wey waa meesha ugu dambaysa oo kala qaybsanaanta la gaari karay marka waxaan u baahannahay noocaas ka duwan wayna inaga muuqataayoo waxaa degmada eyl ka soo baxay 2 nin oo walaala ah oo 2 xisbi ka kala tirsan oo waliba doorashadii u dambeysay oo hadda ka dhacaysay eyl ku kala aragti duwanaa waa horumar siyaasadeed oo xoog leh oo muujinaya bisaylka bulshada iyo meesha gaarsiisanta waxaa ku soo baxay degmada Qardho laba qof oo isqaba oo maaragtay tartamay ah isbedeladaas waxay muujinayaan horumarka bulshadan ay gaarto oo marna maskaxda bini aadamkii hore ee odayaasha qabiilka aan ku soo dhicin sinaba uma suuroobeyn iska daa 2 walaalo ah 2 isku jifi ah oo isku dhow xataa lama qaadani waad ogtihiinoo reeraha wax loo qaybinayo aragtiyo wax looma qaybinayo haddii aragti wax la qaybiyo dee walaaluhu 2 aragtiyood bay kala sitaan haddii reere la qaybiyo dee 2 walaalaha waa isku reer marka waxa aan rabno inaan ka korno oo ka kobocno waxa weeye kala qaybsanaanta aragtida in ay noqoto waxa bulshadan ay ku tartamayso aragtidaasna ay noqoto aragti wax dhisaysa oo bulshadan dhismaheeda ka qayb qaadanaysa meesha aan u soconno waa halkaas ma aha in qof la doorto qofna laga tago waxaan u soconnaa inay ka soo dhex baxaan aragtiyahaas kala duwan oo tartamay bulshadu u hesho waqti kee dantiina ku jirta markaasaa la garan karaa marka isbeddelka imaan kara haddii kaleeto wax lagu qiimeeyo ma jiri karaan puntland dabcan marxalado kala duwanay soo martay taariikhduna duugoobi mayso deegaanadan puntland hadda la baxay taariikh fac weyn
bay Soomaalida ku leeyihiin oo u baahan in la xuso oo ay dhici karto bararka qaarkood colaad aysan mutaysan inay ku helaan waad ogtihiin Puntland waxaa ku taalla xaruntii daraawiishta ee Taleex oo deegaanadii uu sayidka ka dhashay uu ka hirgelin waayey in uu cadowgii iyo isticmaalkii markaa jiray uu ka hor yimaado dadkan waxay ahaayeen dadkii hoostigareeyey oo la dareebay in ay tahay in cadowga la iska kiciyo waajib khaladaadkiisa iyo wanaagiisa waxaan xoog badan wanaagiisaan eegaynaa dadka qaybtiisa mararka qaarkood waa laga yaabaa dadkii tartanka kala dhaxeeyay marmar waa dhici kartaa inay khaladaadkiisa meeshan gareeyaan laakiin waa taariikh u baahan in la xuso oo lagu faano waxaad ogtihiin Suldaan Maxamuud Cali Shire markii Ingiriiska uu kari waayey in uu u sanduloobo waa muwaadinkii Soomaaliyeed u horeeyay oo siyaasiga oo la masaafuriyay oo Seychelles lagu xiray markii dambana ay garawsadeen Ingiriisku oo ay bilad siisay Queen Elizabeth hadda dhimatay waa taariikh u baahan in la ilaaliyo boqortooyadii baargaal fadhiday waad ogtihiin Talyaanigu markuu kari waayey waa meeshii ugu horeysay oo Soomaali iyo Afrikaanba ah ee ciidamo bad navy ay weerar ku soo qaadaan iyadoo tii Taleex ay ahayd ciidamadii meeshii ugu horeysay oo Afrika ee diyaarado lagu soo weeraray taariikhdaas ayay Puntland hoostigareynaysaa saldanadii Hobyo waad garanaysaan waa tii dhashay SYL waa tii dhashay xorriyadda Soomaaliya waa tii dhashay aragtida maanta Soomaaliya ay ku faanayso ilbaxnimadii xeebaha Hindiya waa kuwa dhisay oo ka qayb qaatay Muqdisho Marka Kismaayo iyo meelo badan oo Soomaaliya iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga ka hana qaaday Bay iyo Bakool taariikhdaas quruxda badan ee dadka Soomaaliyeed ay la wadaageen waxay hormuud u ahayd inay dadkani mar walba aragti dheer ay ku fakarayaan oo ah Soomaaliya oo caalamka la jaan qaada oo aan marna ka hooseyn ismihii Puntland wuxuu ahaa taariikh kaleeto oo u baahan in la xuso dowrkii ay ka qaateen ismadii markaa joogay oo runtii udub dhaxaad ay u ahaayeen Islaan Maxamed iyo Garaad Cabdiqani oo runtii saldhig u ahaa inay bulshadan ka guurto nidaamka kala qaybsanaanta ay markaa jiray iyagoo oo bulshada intooda badan ku wacyigelinayay inay nidaam dawlad dhistaan oo ka xoog badan kii markaa ay haysteen oo ururada siyaasiga ah ama ururada jabhaday ahaayeen ururo siyaasiya mararka qaarkood la dhihi jiray jabhado dagaalama ay ahayn dagaalka lagu gudbo oo deganaansho iyo maamul loo gudbo runtii taariikhda dhow dadka soo maray waxaa ka mid ah Cabdullaahi Yuusuf oo mar walba xorriyad iyo raadinayay xukun la wadaago xabsi u galay Soomaaliya xabsi u galay Ethiopia mararka qaarkood dadku u fasiri jireen in xukun uu raba taariikhda way proof gareysay inuu isagu xukunka waqtigiisu haray inuu iscasilo waxa uu raadinayay maaha wax naftiisa ah waxay ahayd wuxuu raadinayay sharafta iyo gobonimada dadkiisa Soomaaliyeed waxaan u baahannahay taariikhda la rabo in la duugo oo dadka qaarkiisa ee Soomaalida ay rabaan inay waji khaldan u abuuraan in runta laga sheegaan raba waxaas intaa ka sii daran in dad reer Puntland ay wadadaas mararka kala qaadaan iyagoo danahooda fiirsanaya dawladnimadooda dhaliilaya dantaas guud ee Soomaaliyeed aanan u jeedin inay Puntland hormuud ugu noqoto dadka nidaamka dimuqraadiga ee hana qaaday ka hor soo horjeeda ama diidan inay Puntland taariikh damo oo cusub ay samayso ogaada waa dad soo jireenkii taariikheed ee Puntland lahayd raba inay is hortaagaan oo ay burburiyaan waxaan u baahannahay inta halka fadhiday inta maqanba inay ilaashadaan taariikhdaas quruxda badan ilaaliyaan mustaqbalka ifaya saddexdan degmo wixii ka qabsoomay waa taariikh waxaan rabaa inaan halka cadeeyo degmada Eyl markaan halka joogno wax badan baa laga sheegay la isma rabo waa la seystaa laakiin waxa ay soo baxday
dadka deegaanka iyo golayaashaba dembiga ma ahayn dad kale si kale ugu dhex jiray muddadii aan joognay runtii waxaan kala kulannay weji ka duwan suuradda intaanan tegin laga sheegay waxaan aad ugu bogaadinayaa inay halkaas joogaan dad ilbaxa garan kara xaaladda markaa jirta duruuf kastoo timaadana in laga gudbo diyaar u ahaa waan ku ammaanayaa runtii waan uga mahadcelinayaa dadkii deganaa ururadii siyaasadda oo si guud uga wada howlgalay sidii maanta quruxda aan haysan inay u hirgasho aan uga wada shaqeyno hadafkaasna aan wada xaqiijin waxaan u baahannahay meeshaan inay ka soo baxaan fariimo culus oo ah in la helo golayaal ka turjumaya dareenka dadka macnaheedu maaha markaa golayaashaan noqotaan in la soo doorto wax kasta inaad awood u leedihiin inaad qabataan maxaa yeelay marxaladda dalkeena ku marayo ayaan ahayn marxalad wax walba qofku uu qaban karo heer kasta ha jooga laakiin marxaladda uguna yar uguna weyn aad qaban kartaan waxa weeye inaad matali kartaan mujtamaciin dareenkiisa doonistiisa waxa u baahan yahay in la gaaro waa arrin kale laakiin inaad matali kartaan dadka aad matalaysaan waxa ay doonayaan inaad meel walba aad kaga garaacdaan waxaan rabaa hay-aduhuna oo ay maqlayaan saddexdaa degmo il gaara in loo sameeyo oo dareenkooda la dhagaysto iyada iyo wasaaradda arrimaha gudahaba iyo wasaaradaha kaleetaba si dhow loola qabto waxa ay rabaan inay qabsadaan markii awooddooda waxqabad la arko daadejinta maamulka waxaan rajaynayaa meelaha ugu horreeya lagu practice gareeyo inay noqdaan si practical ah intii loo dejiyey inta ka dhiman weli waxaan ka xumahay miisaaniyadaha aan ku shaqaynayno